Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada xalqadda toddobaad ee taxanaha Falastiin dhul qabsasho si ay u dhisaan dowladooda cusub. Sahyuuniyiintu waxay sameeyeen howlgallo ballaadhan oo qarsoodi ah, isuguna jiray dib u dhis iyo dib u dejin si ay u beddelaan aqoonsiga rasmiga ah ee dhulka Falastiin, ayna ugu diyaariyaan dhulkan mulkiilayaasha cusub ee ka kala yimid adduunka oo dhan. Godad taariikheedyo iyo dhismayaal goobo caan ah oo loo ekaysiiyey kuwo qadiimi ah ayaa laga bilaabay dhulka Falastiin si wax un taariikha loogu sameeyo Yuhuudda dhulkooda cusub ee ay Falastiiniyiinta xoogga ugala wareegeen. Labadii dhul ee ay Sahyuuniyiintu xoogga ku qabsadeen sanadkii 1948 iyo sanadkii 1967 ayaa la daalaa-dhacay noocyo kala duwan oo dhalan rog ah. Dhulalkii la qabsaday sanadkii 1948, tallaabooyinkii ugu horreeyay ee uu qaaday maamulkii cusbaa ee Israa'iil waxaa ka mid ahayd aas-aasidda hay-adda lagu magacaabo The Guard of Absentee Property, hay-adda ilaalada hantida dadka maqan. Qaamuuska Sahyuuniyadda haddaan u eegno hawsha hay-addan, waxay ahayd in loo qaybiyo hantida ay dadka Falastiiniyiinta ay ka qaxeen soo galootiga cusub ee Yuhuudda ah. Yuhuudda cusub ayaa la siin jiray guryo iyo dhulal, maadaama tuulooyinkii Falastiiniyiintu ka qaxeen badankood aysan waxtar u lahayn Sahyuuniyadda. Waa ay burburiyeen si aysan carab dambe weligood ugu soo laaban, waxayna iyagu aasaaseen beelo u gaar ah, Mushafim iyo Kibbutzim. Falastiiniyiintii ku hadhay guryahooda, Yuhuuddu waxay kala wareegtaa dhulka mar walba oo ay u baahato si dadweynaha Yuhuudda ah looga faa'iideeyo. Intaa ka sokow goobihii barakaysnaa ee dhulka Falastiin, Yuhuuddu waxay ku soo rogtay in howlaha aan xadaaradaysnayn oo keliya lagu qaban karo. Goobahani waxay sidoo kale wajaheen dib u dhac baahsan, taasoo ku khasabtay goobihii carabtu degganayd inay noqdaan kuwo sabool ah oo aan horumarin. Dhulkii la qabsaday sanadkii 1967, dhulkan waxaa lagu soo rogay isla siyaasadihii gardarrada ahaa, inkasta oo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin inay yihiin qaybo ka mid ah dhulka Israa'iil. Xarumihii barakaysnaa ee Muslimiinta iyo Masiixiyiinta ayaan la ixtiraamin. Tusaale ahaan, masaajidkii Ibraahim ee magaalada Al-Khaliil ama Hebron ayaa ugu horreynba ay Yuhuuddu qayb ahaan xidhay, waxayna qayb weyn oo masaajidka ka mid ahayd u beddeleen macbad Yuhuudeed. Inkasta oo aysan jirin wax xadidaado sharci ah oo lagu soo rogay gelitaanka Muslimiinta ee goobtan, haddana waxay ciidamadii Israa'iil kala kulmeen nooc kasta oo bahdilaad ah. Ciidamadii Israa'iil ee halkaa ku sugnaa waxay marmarsiyo ka dhiganayeen inay ilaalinayaan Yuhuudda cibaadaysanaysa. Dowladda Sahyuuniyaddu waxay derbiga galbeed ee masjidka Al-Aqsa ugu magac dartay The Wailing Wall, gidaarka baroorta, iyadoo ku salaynaysa sheegashooyinka Yuhuudda ee ah in derbigan uu ka mid ahaa macbadkii Sulaymaan oo la sheego inuu ku hoos jiro masaajidka Al-Aqsa. Dhul badan ayay Yuhuuddu la wareegtay, iyadoo loo malaynayo inay yihiin goobo ay ku yaalaan macbadyo hore oo ay Yuhuuddu lahayd. Arrinkani waaba ka caadi xagga Yuhuudda. Hantida Falastiiniyiinta waa ay la wareegtaa si looga dhiso degsiimooyinka Yuhuudda iyo adeegyada guud ee ay u baahan yihiin. Dhul badan oo bacrimsan ayay Israa'iil ku dhawaaqday inay yihiin aagag militari oo xidhan ama kayd dabiici ah si looga hor istaago Falastiiniyiinta adeegsigooda dhulkan, ha ahaado mid degid ama mid beerasho si ay dhaqaale uga helaan. Waxaa kale oo ka mid ah xadgudubyada Israa'iil ee dhulka ay qabsatay 1967, maadaama Israa'iiliyiintu aysan si rasmi ah ugu tixgelin dhulkaas inuu muhiimad u leeyahay dowladnimadooda, ayna u soo jeediyeen nooc ismaamul Falastiiniyiin ah. Haddana wax dadaal ah Israa'iil kuma aysan bixin sidii loo ilaalin lahaa deegaankooda. Biyaha wasakhda ah ee degsiimooyinka Sahyuuniyadda ayaa si toos ah loogu daadin jiray dhulka beeraleyda Falastiiniyiinta. Mararka qaar xitaa ceelasha Falastiiniyiinta ayaa lagu qubi jiray biyahaas wasakhaysnaa. Falastiiniyiinta waxaa lagula kacay ku tagrifal aan cadaalad ahayn oo kheyraadka biyaha ah, xitaa looma ogolayn ceelal ay ka heli karaan biyo ku filan. Dhanka kale, si looga xayuubiyo beeraleyda reer Falastiin isha ugu weyn ee ay ka helaan dhaqaalaha, maamulka Israa'iil ayaa sanad walba xididada u siiba geedo aad u tiro badan oo ku yaala dhulka beeraleyda ah ee Falastiiniyiinta. Howlgalkan oo aan xitaa joogsamin xilliyada wadahadallada nabdeed ay socdaan. Tan iyo markii la saxiixay baaqi mabaadi'da
Declaration of Principles ee bilaabay geedi socodka nabadda 1993 ilaa Agoosto 2001, Israa'iil in ka badan 70,000 oo hektar oo dhul ah ayay kala wareegtay Falastiiniyiinta, ku dhowaad 282,000 oo geedna waxay ka ruujisay daanta galbeed oo keliya. In Israa'iil la caayo waxay daba socotaa falalkeeda guracan ee duminta guryaha Falastiiniyiinta, iyagoo u arka hub aargoosi ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah ee daanta galbeed iyo Gaza. Intii lagu guda jiray intifaadadii ugu horreysay, guryo ay lahaayeen oo ololeeyayaasha Falastiiniyiinta ayaa la dumiyey si looga hortago inay mar dambe isku dayaan oo ololeynta Falastiin, ama in ay qoysaskoodu ku dhiiradaan ficil noocaas oo kale ah, loona waayo dad Falastiiniyiinta u ololeeya. Intii lagu guda jiray intifaadadii labaad, si loo yareeyo dhaawacyada iyo dhimashooyinka Yuhuudda, dhammaan guryihii Falastiiniyiinta ee lagu tuhmayey inay martigeliyaan dhaqdhaqaaqayaasha ama mintidiinta Falastiiniyiinta ayaa la burburiyey ama la duqeeyey. Tani waxay keentay qirashada gaboodfallada aan xishoodka lahayn ee Yuhuudda. Laga soo bilaabo bilowgii intifaadada ilaa bilowgii bishii Agoosto 2002, Israa'iiliyiintu waxay gebi ahaanba dumiyeen 116 guri oo Falastiiniyiintu lahaayeen, iyagoo 1,211 guri oo kalena qayb ahaan burburiyey. Fadlan ogsoonow in tirada aan kor ku soo xusnay aysan ku jirin guryihii ay Israa'iiliyiintu dumiyeen ee ku yaala xerada Janiin oo ay ku noolaayeen in ka badan 13,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Dabcan umaba baahna in la xusee, waxaa intaa dheer Israa'iil adeegsigeeda hubka caalamka laga mamnuucay ee sida ba'an wax u gumaada ee ka dhanka ah shacabka Falastiin, iyo waxyeellada ba'an ee dhaqanka bini'aadanimada ka baxsan ee uu hubkani u leeyahay deegaanka iyo dadkaba. Marka ay la macaamilayso dhulalka daanta galbeed, Israa'iil waxay raacdaa siyaasad si rasmi ah dhul ahaan u kala saarta Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda. Marino nabdoon oo ballaadhan ayaa laga dhisay dhulka beeraleyda ah ee Falastiiniyiinta si Yuhuudda halkaa degan ay si toos ah ugu xidhmaan Israa'iil inteeda kale. Qorshayaashii ugu dambeeyey ee lagu doonayay in lagu dhiso aag nabadgelyo ah oo kala sooca daanta galbeed iyo Israa'iil, waxay Israa'iil ku hanjabtay inay dhisi doonto xayndaab abadi ah oo ballac ahaan gaadhaya 500 oo mitir, kaasoo u dhexeeya labada dhinac ee dhulka Falastiin ee taariikhiga ah. Hantida waqafka Islaamiga ah ee la qabsaday kadib qabsashadii Sahyuuniyadda ee Falastiin sanadkii 1948, meelaha barakaysan ee Muslimiinta iyo Masiixiyiinta ayaan mar dambe loo tixgelin inay yihiin kuwo barakaysan, maadaama Sahyuuniyiintu dadkii dhulka deganaa ay ku khasbeen inay ka qaxaan. Masaajidyo badan ayaa la gubay ama la baabi'iyey. Qaar ka mid ah masaajidadii taariikhiga ahaana waxaa loo rogay inay noqdaan maqaaxiyo, goobo tumasho iyo hoteello. Tusaale ahaan, masaajidkii Athayr Beibris ee ku yaala gudaha Al-Majdal waxay Sahyuuniyiintu ka dhigeen maqaayad. Masaajidkii Al-Suksuk ee Jaffa waxaa laga dhigay kalaab tumasho. Masaajidkii Qazayriya waxaa loo bedelay baar. Waxay sidoo kale masaajidkii yaraa ee ku yaalay magaalada Xayfa u bedeleen xarun dhillo, goob dumarka jidhkooda ka ganacsada loogu tago, iyagoo ugu dambeyntii masaajidkii Safad ay ka dhigeen madxaf. Masaajidii hadhay sidii caadada ahayd looguma cibaadaysan jirin, taas oo ay ugu wacnayd arqaladaynta joogtada ah iyo falalka gardarrada ah ee Sahyuuniyiintu ku hayeen. Dhisidda masjid cusub Muslimiinta looma ogolayn. Sidaa daraaddeed, arrimahaas aan kor ku soo xusnay oo dhan waxay suurto geliyeen inay gebi ahaanba baaba'aan masaajidii dhulkii Falastiin ee ay Yuhuuddu qabsatay. Wadar ahaan ugu yaraan 100 masaajid ayaa wajahay xadgudubyada noocaas oo kale ah guud ahaan Falastiin. Dhulalkii Alle subxaanahu wa tacaala dartii loo bixiyey ee loo haystay inay yihiin hanti waqaf ah, nidaamka awqaafta Islaamka ee ilaaliya hantida laakiin ku bixiya sababo samafal ah ayay Yuhuuddu la wareegtay, iyagoo ku andacoonaya in mulkiilayaashoodii maqan yihiin. Xitaa carabtii dhimatay kama aysan badbaadin xadgudubyada Sahyuuniyadda, maadaama xabaalo badan oo Muslimiin ah lala wareegay loona adeegsaday ujeedooyin kala duwan. Tusaale ahaan, qabuurihii Macmanullah ee ku yaalay magaalada Qudus waxaa loo bedelay beer dadweyne, waxaana laga dhisay Hotel Plaza. Qabuurihii Yazuur ee magaalada Yafa waxay Sahyuuniyiintu ka dhigeen aag warshadeed. Qayb ka mid ahna waxaa loo rogay goob qashin qob ah. Qabuurihii Al-Istiqlaal ee magaalada Xayfana
qayb ahaan ayaa dhulka laga saaray. 3,000 oo ka mid ahaa qabriyadeeda ayaa dhulka lala simay si looga dhiso aasaaska xarun dalxiiseed cusub oo ay Israa'iil leedahay. Ka hor intii aysan Sahyuuniyiintu qabsan Falastiin, dhulka waqafka ah ee Islaamku wuxuu ka badnaa 168,000 oo hektar, oo la mid ah 6.5% guud ahaan dhulkan, iyo 10% oo ahayd dhulka la beerto ee Falastiin. Waxaa xusid mudan in 340 tuulooyin Falastiiniyiin ah ay gebi ahaanba ama qayb ahaan ahaayeen waqaf, sida Baytulfawrik, Shatta, Sacsac iyo kuwo kale. Dhammaan dhulalka waxay Sahyuuniyaddu ku wareejisay mulkiilayaal cusub, ama xitaa waxaaba isticmaashay dowladda Israa'iil lafteeda. Sahyuuniyaddu ma tixgeliso sharcinimada dhulka Falastiin ka hor aas-aasitaankii Israa'iil. Xalqadana maanta intaa ayay nooga eg tahay. Haddii muuqaalkan aad ka heshayna, ha hilmaamin inaad like saartid. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.